maxadka barashada farsamada gacanta iyo culumta shareecada islaamka ee Minhaal ee magaalada Burco ayaa u soo xiray dufcadii koobaad ee ka qalin jabisa xirfadaha farsamada gacanta oo ka kooban 75 hablood. Munaasabad ballaaran oo subaxnimadii hore ee saaka ka qabsoontay Hotel Haas ayaa lagu abaalmariyay ardayda dhamaysatay xirfadaha kala duwan ee dugsiga Minhaal, waxaana kala qayb galay mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda waxbarashada Somaliland, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Nafaqo, xildhibaan Mubaarak Bidhi iyo marti sharaf kale oo ka soo qayb galay madasha. ugu horeynba waxaa halkaasi ka hadlay faahfaahin dheeriyana ka bixiyay ahmiyadda ay leedahay munaasabadani maamulaha dugsiga farsamada gacanta Minhaal Cabdisalaan Ibraahim Cabdilaahi iyo qaybo kamid ah macallimiinta dugsigaasi. macadkan wuxuu isugu jiraa 3 nooc waxaan ugu talagalay dadka baahida u qaba ee bilowga ah inaanu ka soo kaabno hadday tahay farbarashadii hadday tahay waxa weeyaan aqoontii iyo waxa weeyaan bilowgeedu qayb dadka sare ee aqoonta soo bartay ama dugsiyada sare ka baxay jaamacadaha ee shahaadooyinka sanawiga sita iyagana waxa weeyaan inay culumta diiniga ama sharciga ay qaataan macadahana waxaan kale oo waxa weeyaan aan inta kumanaan koobnaan waxaan ugu darnay qayb ah xirfadaha ama waxa weeyaan farsamooyinka gacanta oo xaqiiqdii waxa weeyaan haweenkeena guud ahaan dadweynuhu u baahan yihiin bulshadu dufcadiisii koobaad oo ka qalin jabinaysa ama ka baxaysa soo xiraysa xirfadii gacanta ay barteen. xirfadahaas oo isugu jira 3 nooc qayb cunto karina oo cookina, qayb dawaara oo waxa weeyaan hadii la kuriyo ama harqaankii tolliimadii ah iyo qayb xinnihi ama cilaasaadkii. xirfadaha wadamada caalamka waxay kaga jiraan doorka ugu muhiimsan run ahaantii marka ardaydani waxay dhamaysatay xirfado kala duwan oo kala ah cilaasaarka, cunto karinta iyo waliba dawaarka. xaqiiqatan waa mid guud ahaan aad u yar oo gobolka ka maqnay farsamada gacanta in la helo dugsi farsamada gacanta ah oo lagu baranayo xirfadaha kala duwan ee waxa weeye nooc walba leh. geesta kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaybo kamid ah ardayda ka qalin jabisay mihnadaha kala duwan ee farsamada gacanta, waxaanay ammaan iyo mahadcelin u soo jeediyeen maamulka iyo macallimiinta dugsiga Minhaal iyagoo uga mahadnaqay sidii wanaagsaneed ee wax u soo bareen. waxaan idin sheegayaa ardaydu maxay soo dumarku imka hooyooyinka kale markaynu ka hadlayno waxay koodhanayaan adigu inan baa tahay iska joog weelka xal guriga ka shaqee waxbarasho xukuuma tarayso. marka waxaan dileeyahay dhamaantiin baa inteeda maxay soo qalin jabinaysana inta kumaana dhamaysan maxay soo qalin jabinteedii ka bilaabay erayada kulligeen beebaha ina keenay duunyada. macallimiintayda runtii inta badan la garab taagnay dib iyo dheefan la soo martay runtii waxyaalo badan aan soo baray aad iyo aad bay mahadsan yihiin. mas'uuliyiin ka socotay jaamacadda islaamiga An-Najaax iyo mas'uuliyiin kale oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ku ammaanay dugsiga farsamada gacanta ee Minhaal kaalinta mugale ee uu ugu jiro gobolka. dhalinyaradii fikradan iyo maxadkan asaaskiisa lahayd ee maskaxdooda ay fikradani ka soo maaxatay kadibna dadaalay waqti geliyay ilaa iyo ay midhaha maanta horteena yaala ay soo saareen. waxaanay runtii ka soo gudbeen marxalad aad iyo aad muhiim u ah saa ka war haystaan maanta waxyaabaha aadka reer Burco iyo ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Islaamka ay u baahan tahay waxaa kamid ah farsamadii gacanta in la soo celiyo. gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Nafaqo, xildhibaan Mubaarak Bidhi iyo gudoomiyaha waaxda waxbarashada gaarka loo leeyahay ee gobolka Togdheer oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ku ammaanay ardayda dhamaysatay xirfadaha kala duwan ee farsamada gacanta kuwa wax badan ka bedeli kara baahiyaha shaqo la'aaneed ee dalka ka jira. waxaan ballan qaadayaa oo ku hadlay magaca degmada inaan la shaqeyn doono macallimiinta iyo maxadkaba aan la shaqeyn doono oo anoo runtii ku kalsoon maayarka iyo golaha deegaankaba inaanu si gaar ah uga shaqeyn doono runtii iskuulka maxadka. haddii aan rabitaanka iyo doonista ardayda waqti aanay u lumin oo aan habeenkii u soo jeedeen runtii ma isu tagasheen maanta inaanu joogno runtii xafladan. dhammaanteen sharaf bay inoo tahay inaynu maamuusno oo u bagabagayno oo u baraarayno oo u bashbashayno ardadaas ka qalin jabinaysa qaybaha kala duwan. waana sharaf dhammaanteen maqaamka aad gaarteen aad u soo dhabar adeegteen
oo maanta runtii miraheeda aad guranaysaan insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaad gaarsiin doontaan gobolka dhammaantii gobollada somalilan maanta way tartamayaan waxay ku tartamayaan aqoon waxay ku tartamayaan dhaqaale waxaan rajaynayaa dhowr iyo 70 hablood ee maanta hal ku qalin jabiyay inay ka qayb qaadan doonaan horumarka gobolka ka socda ugu dambeyntiina waxaa halkaasi lagu abaalmariyay ardaydii kaalmaha sare ka gashay dugsiga farsamada gacanta ee Minhaal Maxamed Xasan Diiriye Maxamed Jookar Ariel TV Burco